shaqadiisu waa ganacsi laakiin ganacsigii dhoofka iyo soo dejinta waa uu ka wareegay 7 sano ee la soo dhaafay wuxuu sameeyaa lacag 20 jeer ka badan tii uu sameyn jiray waagii uu carwada baqaarka ama gaadiidka iibinayay fadhigiisii wuu bedelay wuxuuna haystaa kaar dawladeed laakiin weli waa uu ganacsadihii dawladnimada Soomaaliya waxay noqotay meesha ugu fudud ee lagu taajiro waqti hore aragtidan waxa haystay shakhsiyaad gaar ah laakiin hadda waxay noqotay aragti dad badan ku xamaashaan boqolaal ganacsato ayaa soo dhex istaagay nidaamka dawladnimada Soomaaliya iyagoo guranaya hantidii shacabka waxay afka u dhigteen qandaraas walba oo ay bixinayso dawladdu waxay qaateen dhulkii danta guud waxay heleen canshuur dhaaf waxay dalaalaan heshiisyada dawladda dhexe iyo dawladaha xubnaha ka ah qaarkoodna waxay gaareen darajada dalaal caalami ah ganacsatadan dawladda kama rabaan inay xillu magacawdo mar walba ganacsatada ku dhex milanta dawladda ee boobaha hantida dadweynaha waxay u bataan beelaha madaxda markaas xilka haysa tani waxay abuurtay in maanta ay ganacsatada hanti badan haysata isu diyaariyaan doorashada soo socota ee Soomaaliya iyagoo raadinaya qof ay kula daartaan inta ugu badan ganacsatadan waxay degan yihiin Muqdisho iyo Nairobi doorashada soo socota ee Soomaaliya lacagaha lagu hardimi doono kuma ekaan doonaan boorsooyinka carabta laga keeno waxaana la saadaalinayaa in hardan culus u dhaxmari doono ganacsato iswaji taqaana balse kala ujeeda ah ganacsatada doonta saaran ee hadda haysata qandaraasyada waxay u dagaalami doonaan in saaxiibadoodii fursadda siiyay ay ku soo laabtaan xafiiska halka kuwa banaanka loo tuuray ee laga xiray tubooyinka ay dhuuqi jireen ay u dagaalami doonaan inay dad cusub la yimaadaan si ay bari iyaguna uga faa'iidaan xogtu waxay sheegaysaa in ganacsatadu ay durbasho kaansi ku bilaabeen musharaxiinta dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa laga dareemayay magaalooyinka Muqdisho Nairobi iyo Istanbul kulamo u dhaxeeya siyaasiyiinta la filayo inay u tartamaan xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo ganacsato caan ah sidoo kale ganacsato u walaalaynaysa qaar ka mid ah madaxda xilka haysa ayaa wada lacag aruurin arrintan kama maqna xisaabta qabiilka dadka xoogagaalka ay reer Muqdisho way garanayaan ganacsatadii ka taajiray dawladdii hore iyo kuwa ka taajiray dawladda hadda jirta falsafada ganacsatada ee taageerada wajiga koowaad waa khamaar oo waxaa laga yaabaa inay lacag dul dhigaan musharax aan codad badan heli karin laakiin haddii uu guulaysto waxaa jirta fursad fudud oo aan khasaaro badan lahayn waana in madaxda la qaameeyo oo lacag la deymiyo si looga qaato mashaariic ama dhul maadaama ay madaxda ku adag tahay inay kaash soo celiyaan fahamka ganacsiga fasahaadka wuxuu si xoojinayaa in la boobo hantida ummadda Soomaaliyeed wuxuuna Soomaaliya ku seehayn doonaa booska waddanka ugu musuqmaasuqa badan adduunka ganacsatada xogdoonka ayaa batay bilihii la soo dhaafay kuwaas oo ogaanaya fursadaha musharaxiinta ee doorashada soo socota si aanay toogashadu uga qaldamin hay'adda UN Monitoring ayaa hore dhowr jeer u diiwaan gelisay ganacsatada ku milmay musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya xubnahan qaarkood waa kuwa madaxda u soo iibiya hubka iyo gaadiidka dagaalka siyaasiyiinta qaar oo iyaguna fahmay damaca ganacsatada dhaqaale doonka ayaa ka faa'iideysanaya khamaarkan inkastoo aan la hubin inay doorashadu xilligeeda ku dhici doonto haddana waxaan sanadkan shaki ku jirin saamaynta ganacsatada Soomaalida ee arrimaha doorashada taas oo dadka qaarkii ay ku micnayeen damac waalan waxaan maqlay in dalkii dib loo dhisay oo xitaa taalooyinkii dib loo taagay waan ogahay in carruurta reer galbeedku boombolada ay aad u jecel yihiin war taalooyinkii halgamayaashii dalka oo dib loo taagay ayaan kaala hadlay wax badan oo maanta ka mudnaa taallo ayaa la iloobay war dadkan gudaha jooga mucaarad badana war wax ka mudan ma lahan anna inaan imaadaan raba oo aan soo booqdo sidaadu martaba ma lahan haddaadan darooni saarnayn haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid